السلام الله عليكم أخيارتنا لصعوت قلب ونكسن أيان إذن الله يحي ميل كستوى الدنيا كجوكتان كسو دوادا التبين كلاو كم إذا برامج كفاقدات دورك عالم كي الدبلوماسية وستو سوقتا ونيسان جنة الكعب فاقدات دورك عالم كي الدبلوماسية وستو سوقتا ونيسان جنة الكعب إذن هيا وادكودا ودونتان برامج كان وحا كم إذا maraykanka ayaa 5,000 oo askari kala baxaya gudaha wadanka Jarmalka iyadoo goordhowna wasaaradda arrimaha gaashaandhigga ee wadankaasi Jarmalka ay arintani ka soo saareen war weyn oo xasaasi ah gaashaanbuurta NATO markan Trump miyuu ka argoosanaya mar haddii ay ku fiirsadeen dagaalka Iran maxay arintan ka tiri dawladda Jarmalka fursad noocay ah ayay soo abuuri kartaa dawladda Ruushka oo ay qaaradda Yurub hayaan warbixin si aad ah arintaasi u qaada dhigaysa ayaad barnaamijka ku daawan doontaan Trump waxa uu sheegay in 85% awoodda wadanka Iran uu burburiyay haddii ay ahaan lahayd gantaalaha iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn warkan maxaa ka jira madaba marka si qoto dheer loo eego iyadoo dawladda Mareykanku ay maalmihii ugu dambeysana arrimahaasi aad uga hadlayeen mas'uuliyiin kala duwan dagaalka Iran iyo Mareykanka u dhaxeeya waxa uu daboolka ka qaaday awoodda dalkaasi gaar ahaan Washington ay u leedahay haddii ay dagaal weyn gasho qubarada militariga wadamada Kooriyada Waqooyi Shiinaha iyo Ruushku waxa ay bilaabeen dib inay u qiimeeyaan awoodda Mareykanka hubka iyo gantaalaha uu isticmaalay maadaama sanadihii ugu dambeeyay uusan jirin meel lagu tijaabiyay waxaan sidoo kale idin la wadaagi doonaa qaar ka mid ah shirkadaha duulimaadka ee wadankaasi Mareykanka gaar ahaan shirkadda Spirit ayaa maanta joojinaysa duulimaadyada sabab la xiriira dhaqaale la'aan soo wajahay arintan waxa la xiriirinayaa dagaalka Iran oo si gaar ah u saameeyay dhaqaalaha wadankaasi oo qaar ka mid ah shirkaduhu ay bilaabeen inay hadda shaqooyinka istaajiyaan qiyaartana la socotay galab wanaagsan ayaan idin leeyahay ku soo dhawaada faaqidadan oo aan si gaar ah ugu dul istaagi doono wararka ugu dambeeya xiisadda siyaasadda diblomaasiyadda iyo dagaalka dunida dagaalkii Mareykanka uu galay 28 bisha February aynu ka soo gudubnay ee lagu qaaday wadanka Iran waxa uu noqday mid fursad weyn oo dahabiya siiyay wadamada loolanka uu kala dhaxeeyo wadankaasi Mareykanka gaar ahaan wadamada Shiinaha Ruushka iyo Kooriyada Waqooyi oo hadda saraakiishooda militariga ay bilaabeen inay dib u daraaseeyaan awoodda dawladda Mareykanka haddii ay dagaal la gali lahaayeen wargeyska The Wall Street Journal oo arintan warbixin gaar ah ka qoray waxa uu leeyahay tani waxay ahayd sir ballaaran oo wadamadaasi si fudud ay ku heleen marka la eego fudeedka Trump uu dagaalkaasi ku galay wargeyska Wall Street Journal ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa sheegaya in dagaalka Iran uu siiyo dalalka ay xafaaltamaan Mareykanka gaar ahaan Shiinaha Ruushka iyo Kooriyada Waqooyi fursad aan caadi ahayn oo ay si dhow uga daraaseynayaan baaliiri awoodaha iyo xadidaadda militariga ee dalkaasi Mareykanka uu leeyahay warbixinta ayaa tilmaantay in howlgallada militari ee Mareykanka ee gobolka ay u noqdeen baaliiri il xog ururin ah maadaama ay in muddo daba socdeen wadamadaasi awoodda Mareykanka kuwaasi oo la socda qaabka Mareykanka oo u maareeyo dagaalka casriga ah isagoo hubka meelaha fog adeegsanaya difaacyada cirka iyo nidaamyada saadkaba taasi oo dawladahan ay u arkaan fursad aad u weyn oo ay si bilaash ku heleen sida uu sheegayo wargeysku dagaalka ayaa muujiyay awoodda weyn ee Mareykanka ee weerarada degdega ah iyo maareynta howlgallada badan balse sidoo kale waxa uu iftiimiyay baaliiri caqabadaha la xiriira isticmaalka hubka qarashaadka dagaalka iyo culayska saaran ciidamadooda Wall Street Journal ayaa sidoo kale xogtan ka soo baxaysa dagaalka ay noqon karto buu yiri mid istiraatiiji ah oo ay dhinacyada dalalkan uga faa'iideysan karaan qorshaha military iyo diyaarinta iska caabinta mustaqbalka haddii dawladda Mareykanku ay iswajahaan qubra amni ayaa ka digaya iska horimaad noocan oo kala ah iyagoo kaliya saameyn ku yeelan karta baaliiri gobolka bariga dhexe balse sidoo kale ay noqdeen goobaha ay quwadaha waaweyn ku qiimeeyaan awoodda midba midka kale uu leeyahay dagaalka Iran ayaa wali si
horinaya baa layidhi dooda ku saabsan heerka diyaargarowga Mareykanka qarashaadka dagaalada dibadda iyo saameynta istiraatiijiyadeed uu ka keenay loolanka quwadaha waaweyn ee Yurub iyo waliba dalalka Mareykanka xulufada la ah ay sameyn karaan. dowladda Mareykanka ayaa la kulmaysa dhibaatooyin dhaqaale oo weyn iyadoo dagaalka dowladda Iran lagu sheegay qiyaasaadka lacaga gaaraya $100 bilyan oo dollarka Mareykanka in loo isticmaalay sida ay tilmaamayaan ilaa furan sida telefishinka MBC halka Pentagonku ay tilmaameen in 25 bilyan oo kaliya la isticmaalay markii taliyaha taliska dhexe iyo waliba wasiirka dagaalka Mareykanku ay hortageen Congressku ay sheegeen. hasaatee saaka wararka soo baxaya waxa ay tilmaamayaan in diyaaradaha dagaalka sida Spirit Airlines ee Mareykanku ay wajahayaan culaysyo sababay shaqadeena istaajiyaan. wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sheegaysa in shirkadda diyaaradaha Mareykanka ee Spirit Airlines ay isu diyaarinayso inay maanta hakiso howlaheeda kadib markii ay weydo baa layidhi taageero dhaqaale oo dowladdu ka heli jirtay. sida ay sheegtay warbixinta shirkadda ayaa wajahday habraacyo la xiriira musallafnimo 2 jeer wax ka yar 2 sano gudahood iyadoo cadaadis dhaqaale oo xoogan uu ka dhashay sare u kaca qiimaha saliidda caalamiga kororka qiimaha shidaalka ayaa la xiriiray qalaasaha ka dhashay dagaalka Iran iyo waliba saameynta uu ku yeeshay suuqyada tamarta caalamiga. wakaaladda wararka AP waxay sidoo kale soo xigatay baa layidhi qareenka shirkadda inay ku dhawaaqdo musallafnimada Spirit Airlines ay saameyn karta baa layidhi ku dhawaad 17,000 oo shaqaale ah kuwaasi oo wajahaya hubanti la'aan dhinaca shaqada ah. hakinta arrintan ee shirkadda ayaa noqon karta baa layidhi dharbaaxo kale oo ku dhacday wadamada warshadaha duulista Mareykanka taasoo durbaba la daala dhacaya qasaaraha sicir bararka iyo jahwareerka ka yimid saliidda dunida. ilaa iyo hadda Mareykanka si rasmi ah ugama hadlin suurtagalnimada in taageero degdega uu siin karo shirkadaasi si ay dib shaqadeeda ugu bilowdo. dalka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in 5,000 oo askari uu kala baxayo saldhigyadiisa ku yaala wadanka Jarmalka. tanina waxay tahay mid walaac ku abuuraysa wadamada NATO gaar ahaan qaaradda Yurub fursadna u abuuraysa dowladda Ruushka. bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee wadanka Jarmalka oo loo dusiyay qaar ka mid ah wakaaladaha wararka ee dunida ayaa lagu sheegay in arrintan ay tahay mid markii horeba dowladda Berlin ay si weyn ula socotay. wasiirka difaaca dalka Jarmalka ayaa maanta sheegay in go'aanka Mareykanku uu ku gaaray baa layidhi in kumanaan askari uu kala baxayo dalkaasi muddo sanad gudahooda uu ahaa mid horey loo sii filayay isagoo carabka ku adkeeya in Yurub ay tahay in ay kordhiso mas'uuliyadda amnigeeda. bayaan ka soo baxay wasaaradda difaaca Jarmalka oo loo diray wakaaladda wararka AFP ayaa wasiirku waxa uu ku yiri ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Yurub gaar ahaan Jarmalku waxa uu ahaa arrin la sii saadaalinayay. annaga Yurub ahaan waa inaan qaadna buu yiri mas'uuliyad dheeraad ah oo ku saabsan difaaca iyo amnigeena. dhinaca kale afayeen u hadashay gaashaanbuurta NATO ayaa sheegtay in dhimista ciidamada Mareykanka ay muujinayso baa layidhi sida ay muhiim u tahay in dalalka Yurub ay si xoogan maalgashigooda ugu sameeyaan gaashaandhigga iyo waliba waxyaha difaaca. afayeenku waxa ay sidoo kale ku warantay in isbahaysigu si dhow ula shaqeynayo Mareykanka si loo fahmo faahfaahinta qorshaha cusub ee ciidamada loogu dhimayo wadankaasi Jarmalka. jimcihii wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagonka ayaa ku dhawaaqday in wasiirka dagaalka ee Pete Hegseth uu amar ku bixiyay in 5,000 oo askari laga saaro muddo 1 sano gudahooda wadanka Jarmalka. tiradaas waxa ay ka dhigantay baa layidhi 15% ciidamada Mareykanka ee hadda ku sugan Jarmalka inay baxayaan, taas oo loo arko isbedel weyn oo ka imaanaya joogitaanka militariga Mareykanka ee Yurub. go'aankan ayaa ku soo beegmaya xilli dalalkaasi ay wajahayaan cadaadis weyn oo uga imaanaya xiisadda sii kordhaysa ee caalamka iyo saameynta xoogga leh
ee ka imaanaysa dhinacyadan sida weyn isku haysta. ugu dambeyntiina madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay 85% awoodii difaaca iyo sawaariikhda dowladda Iran in ay noqdeen kuwa lagu burburiyo duqeymihii Mareykanku ay ka geysteen wadankaasi. arrintani waxay ku soo aadaysaa xilli khubarada qaar ay tilmaamayaan in dowladda Iran ay weli leedahay kayd difaac oo ay dagaal ku gali karayso, iyadoo dhinaca kalena Mareykanka la leeyahay kala bar kaydkiisa difaaca waa uu baabi'iyay. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in howlgalkii militariga ay ugu dambeeyay ee ka dhanka ahaa Iran uu si weyn u weeqay awoodda difaaca iyo weerar ee Tehran, isagoo xusay in la burburiyo ku dhawaad 85% wax soo saarka gantaalaha iyo diyaaradaha iswada ee dagaalka. Trump oo warbaahinta la hadlay ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada badda Iran ay si buuxda loo curyaamiyay, isagoo ku andacooday in 159 markab oo Iran leedahay ay ku dageen badda, taas oo uu ku tilmaamay jabkii ugu weynaa ee soo gaara ciidamada badda Iran muddo 10 sannadood ah. madaxweynaha Mareykanka ayaa carabka ku adkeeyay in xayiraadda badeed ee Mareykanku ku hayo marinka Hormuz ay sii socon doonto, isagoo hoosta ka xariiqay inaan la qaadi doonin waqti sare sida uu sheegay cadaadiska dhaqaale ee dowladda Iran ay gashay ee go'doominta si weynna u saameeya dhaqaalaheeda. waxaan waqtiga dhinaceenu waa uu shaqaynayaa, kaydka cuntada Iranna waxa uu dhammaan karaa muddo 3 bilood gudahooda, ayuu yiri sida lagu cadeeyo qiimeyn dowladda Mareykanku ay samaysay. dhanka siyaasadda gudaha Iran waxa uu sheegay in uu ku jiro xaalad jahwareer kadib markii uu aad u sheegay buu yiri in la cirib tiray buu yiri safka koowaad iyo kii labaad iyo kii saddexaad ee hoggaanka Iran, taas oo hadda dhinacyada talada la wareegaya ay noqdaan kuwa jahwareer ku jira maadaama caqabadaha sidan oo kale aysan maareyn karin. Trump waxa uu muujiyay inuu ku qanacsanay soo jeedinta iyo qiimeynta dowladda Iran ay samaysay. dhinaca kale warbixin ay daabacday majalada Axios ayaa sheegaysa in wasaaradda difaaca Mareykanku ay qiyaastay go'doominta badda ee Iran ay hor istaagtay baa layidhi dakhli shidaal ka soo galaya dalkaasi oo gaaraya $5 bilyan Mareykanka. warbixintu waxay sidoo kale tilmaantay in 30 markab oo shidaal ah oo kuwaasi oo 53 milyan oo fuusta waday shidaal Iiraani ah ay ku jiraan gacanta, qiimahoodana uu gaarayo $4.8 bilyan Mareykanka. waxaa intaa dheer cadaadiska sii xoogaysanaya inuu weli yahay mid aan la ogeyn goorta uu dhammaan karo. qaybtay nala socota ay tabinta qaybtan intaas ayaan ku akinayaa. waa Cabdicasiis Barrow iyo barnaamijka faaqidaada wararka caalamka iyo diblomaasiyadda oo aan intaan ku akinaya qaybtan. si aad macluumaad iyo warar kale aad u heshaan ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara. nabadgelo.